qiisa ay niman wadaadiiga sheegeen waxay tageen wadamadan Yurub wadan kamida waa hadda dabtona nin bay ka sheekeynayeen waan si fiican baan ku soo celiyaan kuul nin waxa jira wadankii ka yimid dabtona waxaagaa uu bayday xiraaf iyo balwad iyo waxa sii yeeshay kadib uu jahwareer badan baa ku dhacay kadib niman baa wacdiyay ninka go'aan wuxuu ku gaaray quraanka inuu daraaseeyo oo uu akhriyo oo uu fahmo kuna amal falo laakiin wuxuu bilaabay barta quraanka inuu daraaseeyo yawmiyan horta wuxuu akhriyaa 8 juz quraan qofka Yurub jooga shaqaalaha oo maxaya oo kala maartay 8 juz quraan yawmiyan uu akhriyaa wuxuu yiri ninkaasi quraanka markaa waxaan sidbuurniyo maalinta jumcada ma nasatid waxaan arkay buur quraankii aniga isoo jiiday oo ay qasbaya waxaan arkay buur automatic ana quraanka akhriyo quraanka si fiican akhriyo oo quraanka riixayba waxaan arkay buur markii damana gartay raaxadayda iyo deganaanshaha iyo nasiishuhuba quraanku ku jira asaabtayda iyo jidhkaydii uba kacaya hadaan quraanka aan akhrin illa deganaanshaha iyo raaxadana ku jiray waa quraanka hadaan ka dhaxbaxo diiqad baa dareemaya sidii ba caado u noqotay qiraa'ad ku bilaabay qiraa'adka ayuu bilaabay dabtona wuxuu yiri waa ku yara adkaatay in baan la tashaday sheekho igu dhibul ku dalooli yani quwad quraanka quwad naftu tarbiya baanta ku tarbiya quraanka ku tarbiya iyada isdhiibis wuxuu wallahi maka quraanka hadii aanan akhriin waxaan dareemayaa cillo iyo murugo iyo waxaan dareemayaa waxyaabaha marka aan quraanka ka helay maxaa kamid ah waxaan ka helay xasilooni iyo deganaan iyo farxati waxaan ka helay oo cajiiba xanuuna aan qabi jiray baan quraanka ku daway oo waa maxay markaan yaraan hooyaday wuxuu yiri kan laabta ayuu laayay waxaan lahayd asma aad u xun oo naqasku igu dhago quraanka markaan bilaabay iga tagtay xanuuna kale oo aan qabay quraanka saan ugu waday baan iga tagtay waxa kale uu yiri waxa kale oo arkay buuri wixii aan ilaahay weydiisto oo hortayda maray yani mustajaab dacwo waxay ku dhisay confidence yani waxay ku dhisay ilaahay subhanahu wa ta'ala kalsooni aanan awal ku qabi jirin ziyada inaan ku qabo waxay ku dhisay buuri quraanka xiriirkan la yeeshay inaan bini'aadan ka maarmo وبشر يعني إنا الاحترامه أما أن قدريه وباب لكن عند أن كحرنا هي إن وينيني إن وحكرتشيني هي أنو والله سبحانه وتعالى إن طاب وحي كان بوري وقرآنك بركة حول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وحين علماء ذلك من أحب القرآن فقد أحب الله نكي قرآن كجعل هذا إلهي وجعل هذا سبحانه وتعالى حقيقة وحأنك قرآن كجعل إلهي وجعله لكن قرآن كما شيء إلا آخرية كليا وين معنيه سنة نفهمه لذلك وحن آذو مارتي بورين لها رنتي إن عرورها لبرا تفسيرها لبرا أو وحي أخريا أي فهمان وكنت تدبران سي قصص كقرآن كقوة يا إلهي سيدو والله الله سبحانه وتعالى يصال إسلامي وحي يقول القرآن محاض لا يابتي وحن لا يابي يقول إلهي مروا يستصبيا مرنا وقال مارتي واللي يهدديا مرنا شنادي بهالك الله يسوع دقيا مرنا واللي عقل علي قصص باللي يشيقيا وقصص تربضن باللي يشيقيا markaan soo islaamay sida ugu jiray ay markibuna aan muslim marka quraanku kii gaalka ahaa baabu intuu sida u waaniyo oo saa u tusaaleeyo oo mar ayuba arkay isagoo muslim maxaa marinaysa marka qof muslim cilaaqada ugu muhiimsan iyo xariga ugu muhiimsan ee Ilaahay u maraysa waa diinta Ilaahay oo quraanku uu ka yahay waxa kale oo garanayaa in sheekho hadda nool ayaa igu yiri arday badan buu haya arday kulli ziyada buu haya قرآن iyo maarta culum sharciya buu dhiga ninka sheekhi maxaad mucjiso ka artaan quraanka wuxuu yiri weligii caruurteeda dhakhtar mugin laba jeergaan oo biyo anoo yaalo labada jeergaan ee biyaha baan qaadaa ardaydan dhax dhiga 500 oo qorba quraanka lagu akhriyaa 300 oo qorba quraanka lagu akhriyaa tira lagu akhriyaa maarta tira badan buu sheegay ayaa lagu akhriyaa kun qorba hadda doon lagu akhriyaa biyahaas guriga dhiganayna ilmihii madax xanuun biyahaas u cabay ilmihii maarta wuxuu baadaa biyahaas u cabaya xanuunna ilaahay nooma keeno marka nooma keeno
dadna waan arkay buu sidoo isagu ii sheegay dadna waan arkay ilaahayba quraanka ku daway ilaahay quraanka ku daway lidaalika aniga hadda waxaan runtii aan arkay bisha ramadaan oo kala ka soo qaad kullama markaad quraanka aad مثلا 10 maalmood 5 maalmood 3 maalmood aad quraanka dhamayso ee aad tafsiirkiina aad garanayso waxaad sooranaysaa niyo miyad waalayd ramadaantii koor niyo ibtaradaadi maxay ahayd niyo qaab darayda يعني waxa aad iyo aad kula fool xumaanaya xaaladii aad ku jirtay qabla ramadaan iyo cilaaqatuka ma allah ilaahi subhanahu wa ta'ala xiriirka aad lahayd ma garatay markii quraanka aad bisha ramadaan intaad ka baxdo quraankii aad yarayso mugdi baad galaysaa kaana qof suuxsan baad noqonaysaa qof suuxsan ayaad noqonaysaa waana aragnay rag intay soo islaameen hadda tafsiirka akhriya waana soo islaameen ugu markaas tafsiirka akhriyaan oo dad u akhriyaan oo qoraan markaad weydiisana waxay ku leeyihiin the best way sida ugu wanaagsan oo ilaahay loola xidhiidhi karaa waa min khilaal alqur'aan way min khilaal alqur'aan marka aan waxaan odhan lahaa ninkii doonaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala la xidhiidho min khilaal alqur'aan wa sunnati nabiyina maxamed sallallahu alayhi wasallam halkaa kala xidhiidho baarakallahu fiik